بسم الله الرحمن الرحيم كسودو هذا توتوريال كاني كفايدة قون وين كبرنيني كويك بوك يني تاعنا 10 دين تاعنا اي كويك بوك كبرنيني هي كومباني كاني اللي وان كومباني ما نطوح كومباني ما نطوح برنا 10 كاني كويك بوك ها oo aan baranayna maanta waxaan baranaynaa wax la yiraahdo refunding on and credit. Refunding and credit waxa weeyaan marka alaabtii customer-keed ka iibisid laakiin alaabtii uu kugu soo celiyo ama ay xumaato ama ay uu si kale u soo celiyo oo uu ka dalbado inuu lacagtii ku yiraahdo iga celi alaab ma rabo laakiin lacagtii baan rabaa inaad ii soo celiso hadduu 100 kiish ka gabtaday uu 2 kiish soo celiyo uu ku yiraahdo labada kiish lacagteedii si aad u gelin lahayd quick book adigoo marka hore alaabta sii geliyay oo ay ku diiwaan gashanayd alaabtaas la socod wanaagsan marka qaybtaas laga geliyaa qaybta waxa la yiraahdaa refunding lacagta dib u bixinta refunding marka qeexayno waxa weeyaan ama la qeexayo waxa weeyaan wuxuu ku qeexaanba quick book wuxuu issue credit memo to credit customer for merchandise returning or surface credit wording on accounts customer ku soo celinay alaabta soo celinayo weeyaan oo customer soo celiyo merchandise return alaabta ku soo celiyo ama surface credit ki surface lacagti oo khaasiga qada adeegga u fududeysay uu leeyahay adeeggaas iska soo celi lacagteedii markaas aad ka gelinaysaa kabacdi saas aad ugu dhufanaysaa markaas laba jeer u kala geliso wuxuu ku soo dhimayaa wax la yiraahdo credit memo ku soo sooreeyaa oo xasuusin inaad diinta lan dib noqonayso ama wax ka jiraan kabacdi waxaad ku dhufanaysaa customer-ka doonaysid ama macmiilka aad doonaysid marka ugu horeysa uu ku diiwaan gashana sababtoo ah customer-kan hore ayaad alaab u iibisay marka Faarax Geele customer-keenaas ayaan doonayaa inaan ka celino alaab aan hore uga iibinay marka alaabtii halkaas aad gelinaysaa imika inagu alaab baan iibinayni surface-ka markaad tiraahidna surface-kii uu cancel gareeyay ama uu diiday inuu noqdo ayaad halkan ka dooranaysaa oo saa u gelinaysaa sida surface-ka loo geliyo company-ga surface-kan 10 ayaan ku qaadan doonaa insha Allah marka imika sokortaas ayaan gelinayaa sokorta kontanka kiisha wixii soo celiyay haddaan raahno 2 kiish soo celiyay 2 kiish oo sokor ayuu soo celiyay 2 kiish waxa noqonaysaa 60 3 kiish ba ka dhig kiishkii $30 bay ka siinay 3 kiish ayuu nagu soo celiyay oo returns uu soo celiyay laakiin wuxuu doonayaa lacag buu doonayaa markaas saa u gelisid waxa noqonaysaa $90 bay noqonaysaa totalkeegu $90 marka noqoto markaas saa u gelisid wax kale ma gelinaysid waxaad dooranaysaa talabkii maalintii hore uu sameeyay dad numberkiisa isaga gelinaysaa credit numberkiisina waa caadi ah ku gelinaysaa date-kan uu kugu soo celiyay waa date-ka saxda ah gashanaysaa haddii kugu jiro halkaas ay ku qoran tahay used credit ayaad gelinaysaa oo asaaso fladder soo taabanaysaa fladder markaas aad fulinaysid labo ku siinayaa inaad give refund inaad dib lacagtii ugu celisid oo lacagtii ugu qorisid lacagtiisi alaabtii markaad kala qaadatid aad dib lacagtii ugu celisid marka taan doonayno maanta waxa weeyaan taasoo give refund baa la yiraahdaa lacagtii inaad dib u siino doonayno marka saad give refund ugu dhufatid wuxuu ku soo sirayaa pop up kan ku soo saaraya pop up kan inta cad unbaad edit gareyn karaysaa meelaha cad unbaad edit gareyn karaysaa inta madow ma taaban kartid automatically ayuu u save gareeyaa marka accountigan aad doonaysid inaad lacagta ka siisid haddaad cash ku siinaysid xagan aad ka eegaysaa cash haddaad ku siinaysid taas aad ka dooranaysaa haddaad check ku siinaysid halkaas ka dooranaysaa express iyo waxyaabahan kale ma isticmaalayno wax isticmaalnaa e-check iyo sidaadkaas ka wata ama e-dahabta aan isticmaalnaa kuyaad ka siinaysaa haddii markaan imika ku siiyo ninkan cash halkan aad ka eegaysaa accountiga inta kugu jirta cashkaaga halkan cashkaaga wuxuu marad ka siiso wuxuu ku dooran halkan wuxuu ka dooranayaa accountiga uu cashkan kugu jiro oo cash on hand ayuu inoo geenayaa alla subscribe adiga oo taabanaya halkaas bartaas saa u click gareynaysaa marka saa u click gareysid si aad ula socotid wax kasta oo soo gelino haddaan halkan check ka doortana waa in halkan hoosana eeg halkan tan check ka doorto check-gu cash-ku male waa in halkan bangiga ka doortaa oo bangiga dahabshiilna halkan doortaa si uu dahabshiil check haddaan u qoro uu dahabshiil bangiga ka qaato markaan siiyo check-gan kabacdi marka waxaan doonaynaa cash baan ku bixinaynaa cashkaas markaad dooratid cashka waxa inoogu jira waxa weeyaan cashkeen waa cash on hand lacagta inoogu jirta qasnada
$1890 baan ka bixinayna information kiisi wixiisa ku qornay ma bedeli karaysa halkaas refund memo ay ku qoran tahay waxaad ku qoraysaa xasuusin returning oo waxaad soo celiyo dad ku qoraysaa returning 3 quiches 3 bags of sugar baad ku qoraysaa si aad u ogaatay haddii kale Soomaali macluumaad iska qori karaysaa soo celiyay waxaad ma Soomaali waad iska qori kartaa waxa laga soo oran karaa laga celiyay haddii ay kula jiraan dad aan Englishka fula fahmin oo reportkana akhrisanaya waxaad ku qori kartaa Soomaali laga celiyay 3 kiish baad qoraysaa oo sokor ah marka Soomaaliga aad ugu qortid haddii inamada kula shaqeynaya ama maamulka English garanaya English ma taqaan qorna haddii kalena Soomaaliga isku qoranaysa waxba isma dhibaato male marka ka bacdi marka soo check-garaysid waxa ku dhufanaysaa okay ku dhufanaysaa okay marka ku dhufatid halka wuxuu ku soo shaambadaas ku soo saaraya refunded buu ku soo qorayaa refunded markuu ku soo qoro adiga adsa uu ku soo yiraahdo refund garaysid waxaad ku dhufanaysaa printing baad ku dhufanaysaa oo save garaysanaysaa ka bacdi xaqa hoose ayaad imanaysaa marka to be printing marka xaqa hoose kuma qoran to be printing waa inaad print garaysaa oo computerkaaga hadduu quickbookaaga ku xidhan yahay printingku automatic ayuu print garaynaa marka to be printing noqotid iyasa haddii to be email tirahdeen qof email diraysa inaad alaabta ka celisidna waad gelinaysaa hadda halkaasna message baad ugu qori automatically aad u qoraysaa oo waxaad ku oranaysaa we appreciate taasoo kale ugu qoraysaa we appreciate your prompt payments waxaasaad ugu qoraysaa ka bacdi haddaad message ugu diraysid email haddaad ugu diraysid emailkaad ku dhufanaysaa labadaba waad click garaynaysaa haddii kale taad doonaysid baad garanaysaa laakiin adoo inaad print garaysatid oo aad fail garaysatid baa ku fiican marka saa go'aatid waa remaining creditkiisa waxba inuu kuma harsana badhna waad bixin karaysaa oo haddaad doontid $10 baad siin kartaa ka bacdi waxaad ku dhufanaysaa save and close halkaas uu kugu soo qorayaa halkaas reportkiisa ku soo qorayaa credit memo waa $90 ku soo qorayaa invoice kaas nimka alaabtaas 90 ku jirta marka asan tahay hadhaaga uu kugu leeyahay inuu ku harsan tahay save and close wuxuu ku qoranayaa oo ku soo sheegay wax qoran you have changed the transaction do you want to record your changes yes balance emailkii maadaama gelinay imika aan to be emailin qoranay ku qoranayaa emailkiisii gali marka emailkiisii imika aan email ma gelinayno oo ka saarin halkan ka saaraysaa tidad iska qaadaysaa ka bacdi save and close baad oranaysaa yes baad oranaysaa ku print garanayo oo wuxuu ku diray printingkiina warqadii uu diray warqadii ku print garaysanaysaa saasaad ku save garaysanaysaa documentation halkaas waxaa shirka kusoo gabagabeynayna maanta fadlan subscribe garee ka faa'iido oo nagu caawiyo subscribe-ka halkaas aan kusoo gabagabeynayna sida alaabta loo celiyo ee lacagta loo siinayo muhiimad weyn alaabta kaliya tamar laga celiyo loo bedela jira bedelitaanka laakiin imika lacagtii baa loo celinaya alaabtina waa laga qaadanaya lacagtina waa loo celinaya salaam calaykum halkaas aan kusoo gabagabeynayna tutorialkeeni maanta ay ku badanayeen refunding and credit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.